بيبي doll ama baadil waxaa tidhahdaba jala aflaamtiisa aad loo xiiseeyo kaasoo maanta sanad guulada dhalashiisa u dabaaldegaya filimka Skyforce ee Akshay Kumar hogaamiyaha ka yahay maalintii saddexaad tiyaatarada Hindi ayuu saarayaan Shahrukh Khan waxa uu shaaca ka qaaday isaga iyo gabadhiisa inay filim iskala soo muuqan doonaan atrishada lagu magacaabo Tawakal Khanna oo ahna xaaska u dhaxday Akshay Kumarna waxay garab istaagtay atrishada caanka ee Kareena Kapoor taas iyo xogaa kale ayaan ila wadaagi doonaa balse intaan u gudagalin muuqaalkii waxaan ka codsanaynaa channel ku soo biirto muuqaalka dadka shalaag inoo saar si share gareeyo la wadaaga asxaabtaada soona dhawaada saaxiib yaal haddii aan ku bilaabno jilaaga lagu magacaabo Baby Doll waa mid kamid ah jilayaashii aadka loo xiiseyn jiray aflaamtiisa maanta waxa uu dabaaldegaya sanad guulida dhalashadiisa 56 jilaagan waxa uu dhashay 27 Janaayo sanadii 1999 Mumbai ayuu ku dhashay fanka Hindiina wuxuu kusoo biiray sanadii 1995 filimkiisa ugu horeeyay Barsaad weeyaan jilaagan waxaa dhalay jilaaga caanka ah Dhalamandar waxaana la dhashay jilaaga caanka ah Sunny Doll markaan eegno jilaagan aflaamtiisa ugu caansan waxa laga xusi karaa afarta filim ee kala ah Barsaad Soldier Gupta iyo sidoo kale filimka caanka ah Badal kaasoo soo baxay sanadii 2000 haddaba Baby Doll maanta sanad guulida dhalashadiisa 56 ayuu u dabaaldegaya dadyoga u soo hambaliyeen waxa laga xusi karaa atrishada isku aabahayiina Aisha Doll taasoo iyaduna kamid ahaan jirtay atrishadaha ka xamaasha Bollywoodka inkastoo sanadihii dambe ay luntay atrishadaani dhanka kalena Akshay Kumar weli waxa tiyaatarada Hindi u saaran filimkiisa Skyforce kaasoo jimcihii la soo dhaafay tiyaatarada Hindi la saaray maalintii saddexaad oo shalay ku bagneed waxa uu soo xariyay adduun lageed gaaraya 26.50 karoor sida ay qortay shabakada caanka ee Box Office India laakiin shabakadaha kale ah ee BB sidoo kale Money Control waxa ay leeyihiin waxa uu soo xariyay filimka maalintii saddexaad 27 karoor saaxiibayaal shaqooyin kale markaan eegnana Shahrukh Khan waxa uu shaaca ka qaaday isaga iyo gabadhiisa Suhan Khan inay ka soo wada muuqan doonaan filimka King kaas uu director ka yahay agaasimo uu ka yahay ninka lagu magacaabo Siddharth Anandi waa ninkii director ka ah filimkii weynaa ee Pathan oo Shahrukh Khan hogaamiyaha ka ahaa Shahrukh Khan ayaana shaaca ka qaaday in gabadhiisa iyo isaga inay ka soo wada muuqan doonaan filimka King filimkaas waxa la daawan doonaa sanada 2026 saaxiibayaal dhanka kalena atrishada lagu magacaabo Tawakal Khanna waxay garab istaagtay atrishada caanka ee Kareena Kapoor taasoo maalmaha lagu dhagnaa kadib markii la dhaawacay ninkeeda Saif Ali Khan Kareena Kapoor dadyo badan ayaa ku eedeeyay inay tahay qeyru mas'uul maadaama ay guriga ka maqnayd markii la dhaawacay ninkeeda atrishada Tawakal Khanna ayaana garab istaag weyn u muujisay atrishada caanka ee Kareena Kapoor iyadoo kula talisay inaysan dhig jalaq u siinin wararka iyada lagu durayo markaan eegno maanta oo kale aflaamta soo baxay kuwada ugu caansan waxa laga xusi karaa filimka Jawaab kaasoo soo baxay 27 Janaayo sanadii 1995 filimkan waxa hogaamiyaalkooda Raj Kumar Karishma Kapoor Harish Kumar ee Soomaalidu dhahan Atora Cilanka Mukesh Khanna Soomaalidu qaar doonka ugu yeeran maadaama filimkii caanka ah Bakiya Donga lagu yeeray filimkan natiijaan waxa uu noqday flop hadaba intaas ayaan kusoo gabagabeeyaa saaxiibayaal muuqaalkii koobnaa in kala wadaaga sheekooyinkii ugu dambeeyay arrimaha aflaamta fadlan hadda aad ka heshay muuqaalka like inoo saar si share gareeyo la wadaaga asxaabtaada oo aan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena